maantana sidan hadday ku socoto haddii bidkeeda leeyahay Soomaali inay uun haddii bidkeeda leeyahay maxay ahayd halkii 19 ay joogtay meel ka xun ay ku noqoto ayuunbay ku socota haddaan laga qaban idinkaa u jooga maanta kubaddiina idinkay taalla goolkiina iyo dhinaciina ay taalla haddii la idinku soo simay taladii tani mid Soomaali dhaqda maahe wax Soomaali dhaqa golaha shacabka Soomaaliyeed ha la yimaado wax Soomaali dhaqa ha la yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda dibidkeeda leeyahay hadduu ku soo simay maxay ahayd haddii alla ku samo goliga golaha shacabka ku soo simay waa talaabo wanaagsan sidaa uu ugu soo simay wixii ka soo baxa golaha shacabka haddii bidkeeda leeyahay inuu ayidaadeeda iyo taageeradeeda siiyo baanu isagana ugu baaqaynaa oo ka filaynaa maxay ahayd isagu dadka wuu u dhaxeeyaa inuu sida wixii ka soo baxa golaha baarlamaanka inuu ku ayido oo ansixiyo oo sharci ka dhigo haddii bidkeeda leeyahay saxeexo baanu isagana uga fadhina waxaan kaga baxayaa hadalka waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed baa aan u jeedinayo guud ahaan aan leeyahay ummaday maxay ahayd gabadh weyn meherka maxay ahayd gabadh kashanti aamuska lagu meheriya haddii aynan hadlin oo wixii ina dhaqaya maxay ahayd aan ina dhaqaynin aynan ka hadlin oo aynu haddii bidkeeda leeyahay laba maalmood intaynu maqaayadaha fadhi ku durarka tagno aynu haddii bidkeeda leeyahay afka meermeerina kana ahayd iyo keer ahayd dabatana sidaa wala isku marsado war ummaday haddii bidkeeda leeyahay haddii bidkeeda leeyahay tani u ahaan mayso mid ina dhaqayso ina meel ina geynayso ahaan mayso wardadii codkiina ka hadla wardanihiina ka hadla war hawl qabiil mashkaladii noo keen mayso waxaan laynoo wada ee muuqataan haddii bidkeeda leeyahay in 7-8 qabiil inta la isu kala qaybiyay haddii bidkeeda dawladda laga dhigay ciidamo loo sameeyay awood la siiyay lagana qarannimadii Soomaaliyeed ay meesha ka baxday qarannimadii Soomaaliyeed soo celinteeduna waxa maanta kaliya ka hadli kara waa idinka shacabka ah iyo baarlamaanka aad doorateen qaraaraadkan meelaha kala duwan ka soo baxayna kulli baarlamaanka way imaan doonaan waxaana rajayn doonaa insha Allah ta'ala iyadoon cidna hadda loogu daraanaynin in baarlamaanka mas'uuliyadda saaran ee dastuuriga ah inaanu ka gudan doono dhammaanna ay shacabka Soomaaliyeed ay ku qanci doonaan tilaabooyinka sidaba baarlamaanku waxa uu shacabka uga yahay mas'uulka waa qaanuunka dalkan wada jirkiisa xaqiiqna maanta markii laga hadlo Soomaaliya sida loo sheegayo maamul goboleedadani marka la fiiriyo ma ahan maamul goboleedo ee waxa weeye waa maamul beeleed way waxa fiican in la yiraahdo waa maamul beeleed ee maamul goboleed ma aha waxa kaliya maanta Soomaali isugu jira waa dastuurka qabyada ee federaalka iyo 275 xildhibaan way iyo jamhuuriyadda ka dhaxaysa laakiin sidii qarannimada u burburtay wali u burbursanta in qarannimada u burbursantayna waa marxaati ma doonto oo haday qarannimo jirto waxaan meesha ku qaran ma soo baxeen ee waxay ku tusinaysaa in wali qarannimadii dhaawac tahay in burburkii baaqiyaad yahay in wixii shalay meesha keenay ee dulmigii dhacay inuu wali sii jiro in wali jamhadaha hadda maanta jira waa kudkiyo kaba loo talay jamhadihii markii hore ahaa SSSSSS ahaa mar dambana al isku bedelay baa haddana magacaan maamul goboleed iyo shaarkan gashaday Soomaali ma dhaqi doonto Soomaali sida ma ahaan doonto baarlamaanka Soomaaliyeedna tala ballaaran iyo mas'uuliyad ballaaran oo adduunkana lagaga xisaabtamayo aakhirana la wadiin doono horta alla anuguna kamid baanahay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqana waafajiyo waxaan rabaa fariin dhammaan shacabka dhulbahante dal iyo dibad meel kasta ay joogaan xaqiiqadu waxay tahay dhulbahante ninba wuxuu lahaa gunti xaggal waxa gunti la galiyaa waa ka weynta waxaaba ceeb ah inaga laftigeenu inaan kelmadaha sida ugu dhawaaqno dhulbahante waa beel ballaaran oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed waxa la oran karaa waa xumin muhiim ah hadii la tilmaamayo anigu hadda aan ku tilmaami lahaa inay tahay qalbigii Soomaaliyeed ma suuroobi doonto ma dhici doonto in beelweynta Soomaalina taqaan Ilaahayga abuurtayna yaqaano
in inta la inoorgareeyo beelo kala soo qoran waxba dal iyo dibadba fariinteeda ma maqlaysaan wax jiraya ma dhici doonto laa qadar allah beeshaan ayadaa aayaheeda leh beeshaan ayadaa ismadeeda leh beeshaan ayadaa siyaasiyiinteeda leh beeshaan ayadaa masiirkeeda leh Soomaalidu waxay tiraahdaa nin burciida kugu dhuftay waxba kuma yeelina waxa calooshiisa ku jiro ku tus beeshaan beel isbaaro loo dhigan karo waa ka weynta mana la isbaaraysan karo beeshaan aayaheeda ayadaa leh guud ahaan waxaan is leeyahay inay baarlamaanka Soomaaliyeedna sifo sharci oo la qaado uu ka soo bixi doono beeshuna tiradeeda iyo tayadeeda iyo waxa Ilaahay siiyay ayna cidna marto aan inay ku kalsoonaato cadaalad darradu maantana ma soo bilaaban hore bay u soo bilaabatay maantana reer Khaatuma kaliya ma qabaan cadaalad darrada meel badan bay ka jirtaa aqalka sare waxaad ogtihiin dad badan baa waxay degaan oo Soomaali ah oo ay lafteeda xaq nagu tahay inaanu ka hadalno xuquuqdooda in la yiro gobolka Banaadir xuquuq ma leh warma dulmi ka weyn baa dhacay in la yiraahdo aqalkii sare la qaybsaday wuxuu soo joogaa Jowhar meelna wuxuu ka soo joogaa bahalkii gobolkan Banaadir iyo dadkii reer Banaadiriga ahaa iyo dadkii deegaankan lahaana Soomaaliba ma ahane hanaga guurado doonyaha raacay meel kale ka yimaadeen xuquuqba ma leh بدل الله صدقين كلام بتشر غير خاطر أنا عيد الله ما صدقين كرو غير بنادرنا عيد الله ما صدقين كرو عيد كستا صوماليين أو ظلم اللغة هينا بوينت 5 كامر كرو ظلم أها إن لا يرى أمتنا أو صوماليين أو جد والبدقين إن لا يرى هاف باتين أو غيب لجويه بامر كرو ظلم أهاي إن دولة نما قبيل لقول يسا ظلم أهاي ما صعن دونتو ما نشري دونتو مر لبعض مرصد حادبة وحن كسر علينا إياه waxaa meesha ka soo baxay waxaan aaminsana warkii aad waxa u qiimo badnaa caaqilka warqadan muslim ma soo qorine gaal baa soo qoray warkaan meesha ku yaala Soomaali kama imaanine dalaal shisheeye iyo dawlado shisheeye oo Soomaaliya dimindaabiyo ku haya madaxduna aysan maxaan ku radaa boog bay leeyihiin oo waa rag boog loo ognahay ayna boogtooda ka hadli karaynin ayaa soo saray laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu sakhiray shacabkii iyo baarlamaankii Soomaaliyeed baa arrintan horta Allah shisheeyana ma noo talinayo waxaan rabnaa cid aan cadaalad darro la rabnaana ma jirto Puntland baan aan cadaalad darro la rabin Somaliland baan aan cadaalad darro la rabin Khaatuma aan la rabin meel aan la rabna cadaalad darro ma jirto meel walba waxaan rabnaa sinaan cadaalad Soomaalinimo walaalnimo qarannimo jirta inay ka soo baxdo waxayna ka soo bixi doontaa shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka matalaya waxaan leeyahay dhammaan cid kaste oo aragtay galdololooyinkaas walwalka warqada maxaan ku radaa laaxinka aragtay ee akhriday anigoo ku hadlaya afka baarlamaanka iyo xubinnimadeeda xildhibaannimo oo ku matalaya shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka walwalaada